walaalayaalow xarig ilaahay la siideyn naftan inta lagu soo jira ka warqabtid laakiin haddii aad xarig ilaahay haysatid tukanaysin shantaada salaadood aad tukanaysid haddii aad dhimatid macaa markaas maasha allah qof xarig ilaahay haystay baa taa moogti yah laakiin adigoo xarig ilaahay haysan adduunyada saa u dabooltaya haddii aad dhimatid baa kugu diro oo lagu qabto dhab haddii lagu siiyo marka waxaa weeye aad baa idiin salaamayaa hala soo duceeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal aad baan idiin salaamayaa meel walba joogtaan dunida dacaladeeda sharaf iyo karaama korkiina ha ahaato codkayga haddaad isleedihiin ninka codka maxaa maanta kaga dhacay si codkiisu yahay muxuu qofkaanan codkiisu noolayn haddaa is dhahdaan waa cajalad miyaa cuntay waxa muxuu rikoorka xunka cajalada cunaa isdhihinine waa xanuunsada saaxiibayaal waxa weeye ma garanaysaa intii aan ka maqnaa youtube-ka ka maqnaa xanuun baan kaga maqnaa isbitaalaan ku jiray waxa weeye xanuuno badan baa intii iskuulka ay darmadeen baa aniga dhan mood baan ku jiray macaa dadka lama hadli karinin wallahi xaalad adag baan gala marka mood baa ram intii la isiiyey ma imalayn kartaan waa shakiyey markaas moodka markii la gelay waxaan ku yiri ilaahayow moodkaygu ilaawin والله إلهي إنس إلهي وأوعى لكن إله متكي وإله باقي إله بريانك إلهي ومتكي وإله إلهي عنده الكرة بالآذن كيس أدون وإلهي ماله قف والباء ولا الصعداء إلهي حنون كوحو يتصي وعنده الكرة وعمر قادشو وتصالة وعنده الكرة يعني الدنيا ذا كليس كلها تجينا آخرنا وشيء يسوي ما فاهم سه marka aamus aniga dhama hadalkiiba andu la koro lagu xiray qof haduu ila soo dadka asxaabtayda ahaa oo ila soo hadliyay oo dhan baan andu la ku roon yahay baan waxaan keen inaan la hadli waayo hooyo aabe iyo qaraabo iyo ehelkii sidee tahay xaaladaada ka war markay dhahan waxaan ku iraahdaa waa fiicanahay caadi baan anoo isbitaal ku jiro oo falan bigu xiray yahay baa waxaan ugu ramay iyaga caadi baan ahay waa andu la koro waa fiicanahay ma garanaysaa iyo walaalo dhammaantood macaa walaala ugu ramay si hooyo aabiyo ugu sheegin oo si iga walwal maadaama isku meel joogin oo si walwal badan u dareeminin ma garanaysaa anigana xaalad adag intii qandhal la ii dhiibay wadii xanuuno badan markii isku kala darmadaan waa dareemaysaa qandha intii ii dhiibay ma dhiig lay baariya laga waayay ma garanaysaa marka xaaladayda waxay noqotay xaalad aad u adag waxa weeye marka saas aan kaga maqnaa waxa weeye dadka ii soo duceeyay hadaa iraado waxaan antul ku rooyaa ka baqay dadka inta hore maxaa nooga qoranaysaa oo aabe familkii dhammaan in ilahan xanuun saakuya maxaa nooga qoranaysaa yamtan kala cid walba asxaabaday tahay dad kala haday tahay shib baan ka gala afkaaga saaxirtay ilaahay baan bariyay ilaahay oo antul ku rooyahay ilaahay waa ku bariyaa waxaan ku yiri xanuunkaaga dulqaad ilaahay waa ku bariyaa xanuunkaaga dulqaad baan ku waxaan ogaaday caafimaadka haduu la ku rooyahay iyo qosolka iyo bararaqdi aan ku jiray wallahi iyo markii caafimaadka alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye 8 bari wixii iga dhignayd midda 8 sano oo kale bay iga dhignayd 8 bari si haduu la ku rooyahay ma garanaysaa marka waxa weeye waxaan rabaa inaan halkan idinku sheego idinku soo gudbiyo wixii saaxiibayaal in kagama maqnayn meel kale in kagama maqnayn xanuunkaas ayaan kaga maqnaa hadda waa soo xafaaroobay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaad u soo fariistay familka hadda dhammaan waa arkayaan dadka fiigan waa soo xafaaroobay codkan kaliya codkii bay bedeleen codkii baan soo noqonay moodka ka soo baxay waa aniga hadlaya ma garanaysaa marka ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin waa soo roonaanayaa waxaan rajaynayaa caafimaadkaygana si fiican u soo noqdo waxa weeye ma garanaysaa idinkuna ii soo duceeya saaxiibayaal